وهبك الله فضيلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا قالوا يوجع دمانتين ميل بالدنيا ذات كتشوكتان وولاشين بريرو إذن ده يسو سلامة هذا مانتي محنو هيا وحن هالكان نوجو هيا وحيد تهي وبرنامج تحنو أهاي وأسبوع لصودا في عن حاف عن فيرسنة برنامج كاسو أهاي حريرك كده هي المها يوالدك wuxuu ahayna barnaamijkan wuxuu ahay teetal wuxuu ahay maxaad ka taqaanaa caruurtaada markii qaybtii koowaad waan idiin soo bandhigay hadalkii oo socdo ayaa videogii jarmay waxaan u jarnay wax kale maahane minidada oo videoga ayaa aad iyo aad u badan marka maadaama aad u badan yahay waxaan ka dhigay 3 party 1 waan fiirsanay partigii labaad ayaan waxaan rabaa maanta inaan isla fiirsano haddii alla yiraahdo taas oo aan ka hadli doono maxay ahayd maxaad ka taqaanaa caruurta waa barnaamijkii oo taxanano ah adigana insha Allah daawasho wacan I hope inuu ku caawin doono biidnillah insha Allah haddii Allah subhanahu wa ta'ala yiraahdo haddii la fiirso marka ilmahaagi inaad tiraahdid xabiibti iyo xayaati ilmahaagi inaad ogsoonaatid waxa ay yihiin aad ogsoonaatid kontaroshid ilmahaaga farankooda waxa uu yahay ilmaha maantay wadamada Yurub America ilmaha kale oo loogu yimaado wadamadan oo maxal dhaha ajaanibta ah oo maxal dhaha magacana la wadaagin waa ilmo lagu soo koriyo qaarkood inay daraagi iibiyaan aniga ilmahayga ilma cadaana soo raaco okay ilma cadaana soo raaco ilmaha cadaan backgroundkooda ma taqaana maxay yihiin ma garanaysaa ma aad taqaanid maxaa naga kelmad aan ka sugaa maxay tahay maanta kale ina isoo wacdid oo ay tiraahdo abaya barrier aha wallahi ilmahayga iyo aniga maba is afahmeynabo oo maxaa isku afahmi weysan adii ilmahaaga waxa isku afahmi weysan waxay tahay ilmahan iyo annaga isku dhaqan ma nihin isku diin ma nihin isku culture ma nihin isku caado ma nihin marka maadaama aan ahayn iyaga waalidkood waxaa lagu korinaaba 18 haddaa gaartid you need to leave 18 haddaa gaartid you have to be maxaa la independency 18 haddaa gaartid you have to do your own markaas wuxuu ku leeyahay 18 sano haddaan gaaro aniga waxaan sameynaa aniga shakhsigayga aniga ayaa iska taxadara bal ilmo 18 sano jiro oonkiisa ma sameyn karo wuxuu u baahan yahay waalidkiisa ayuu u baahan yahay ilmo 18 sano jiro albaabka iiga degma dhihi kartid xaraam caleek iyaga waa dhaqankooda iyo dabeecadooda ilmihii in 18 sano ay ku tuuraan ay yiraahdaan banaanka u bax waa dhif iyo qaliil in isaasato laakiin wuxuu u badan yihiin 18 soco danayso nafsadaada burso meel iska soo saar laakiin anaga ma naqaan anaga waxaan naqaana ilmihii haddii markaas ay maxay ahayd dan iskuul meel kale uusan u aadeynin in ilmiheena anaga aan haysanayno oo anagii aan ceshanayno oo inagii halkaas aan ku haysanayno oo anagii aan leenahay okay gabadha hadday weynaato ama wiilkii u weynaado ilaa ay guursadaan ma bixisaan anaga waa dhaqankeena waa sidaas laakiin dadkaas dhaqankooda waxaa waaye maam am 18 marka hore anaa ugu soo akhriiba ama iskuulkii aad ugu soo akhriiba xitaa fiiri dhowr qofood oo kala duwan aan arkay oo maxal dhahay cadaan ah maxal dhahayay qof gabar aad u weynay ahayd naag aad u weynay ahayd oo daa waxay tiri ilmahaygay tiri 20 uu gaaray labadaasani tiri waan tuugaya tuugmo naaw waxay tiri state kalan u guuraa maxaaba adiga ii celceshanaysa state kalan u guuraa state kale ilmahayga iiga guurayaan sacalool xumo maahan mid kale waxay tiri wiilkayga tiri birthdaygiisa waa yoomul fulaan bil hebel hadduu gaaro soo maahan albaabku ka qulqulaa naa maxaa albaabku u qulqulaysaa naa waxay tiri noobay tiri markaanay tiri anaa maskaxda degsanay tiri anaa isjaakeena maana ma now mi soo maray tiri wuxuu cunay wuxuu cabay meeshu seexanayo
ma ku jiri anaga marka dadkaas maanahay sidee marka dadka noocaas u dhaqmaayo ilmaheena aan ugu aaminay sidee ilmaheena aan maxaa la dhahay ugu aaminay ay fareen ay ula noqonayaan sideen aan ugu aaminay oo aan u leenahay iskuulka keligood ha aadaan ama hadday aadan xitaa ma soo kontaroolayo at least wiigii xitaa martag macalinka ha ku arko inaa iskuulka tegis ilmahaaga ha ku arkaan ilmaha saqajaamiinta oo raba ilmahaaga inay dooriyaan maskaxdiisa ha ku arkaan you know why they gonna scare about you wayba kaa cabsoonayaanba ani wiilaan leeyahay waxaan samayn jiray waan tegi jiray wiil soomaaliya wiilkayga isku taagay baska markuu raacayo iskuulka markuu joogo qaatiyuu ka taagnay qaati markuu ka taagnay maalintii dambe waxaan sameeyey iskuulkii aan maxaa la dhahay markaan tagaayo xilligii waxaan isku aadinayay oo laanjigoodii aan isku aadinayo waan tagay markaan tagay wiilkayga mala hadli karin ninkan wuu cabsooday wiilkayga agtiisa ma soo fadhiisan kari ma tegi kariyo anigoona la hadlin meeshaan taaganahay ooba hala fadhiisan iyo aana dhihin meeshaan taaganahay meesha yaa marka taagtaagan maqaayadii macalimiintii maxaan rabaa inaan dhaho heblaayo ama hebelow waa macalinkiiye hebel ilmahayga yuusan ag fadhiisanin ka dhaqaaji waayo because ilmahayga maxaa la dhahaye wuxuu ku samaynaa dhibaato ayuu u keenaa dhibaato ayuu ku samaynaa ma raba iiga fogey marka wiilkii soomaalida markuu argay inaan anigi meesha aan joogo aa la ii fiiriyno il cadaawo in la ii fiiriye aa la cararaa waxaa la tagay meel kale saas waaye il cadaawo saas lagugu fiirina aa lagu dhahaa markaasaa lagaa tegaa micnaha waxaa waaye qumayadaana meesha timid wiilkeedii ma inaan ag fadhiisto hoos ma ka juqjuqayn kari macalinka markuu meel kale usii jeesto wax ma ku samayn kari ayuu is dhahaa adiga markii ilmahaaga saas lagu soo sameeyey maxaa ka ogsoon tahay ilmahaaga yaddiyaa lagu samaynaa ilmahaaga iska celiyo maaga ilmahaaga yaddoodii aa la arkaa ilmahaagii asigoo laga gardaran yahay ayaa waxaa la arkaa adiga ilmahaaga yaddoodii because ninkan marka horeba nin inuu dhibaato geesta rabo waayo macalimiintu iska fiirinaa macalimiinta ishooda markuu iska fiiriyo wuu qabsanaa ilmahaagiis waxbuu ku dhufanaa ilmahaagii marka wax lagu dhufto macalimuu iska ilaalina ma iska ilaalinayo bash waaye bash markay timaado ilmahaagii oo laga gardaran yahay waa laguu soo raacdana 3 days 5 days go home aa la dhahaa okay baskiyaa kuu soo haray baskii ilmihii war ma ka haysaa waa in bus driverka mar kasta aa la hadashaa haddaa arta bus driverka oo baska ninka ama naagta bus driverka in ay qof xun ay tahay ka gaabso laakiin waa inaa iskuulka report geysaa oo tirahda ilmahayga ilmahaas ayaa dulmiyo isku meelna yay fadhiisanin haddii wiilkayga ama gabadhayda markay fadhiisanayso kursigay fadhiisanayso ayaan fiirinaa markay fadhiisato haddii ilmahaas ay u yimaadaan iyaga haddaba ka gardaran anigana waan qorana waan galaa markay fadhiisato ama uu fadhiisto kursiga numberkiisaan qorana ilmihii kale hadday ka soo horeeyeen meeshuu fadhiyaan qorana hadhowdii waxa waaye markii oo lidhaho ilmahayga igu yiraahdo isku maxaa la dhaha baski dhexdiisa saas la igu sameeyey intee ahayd kursigaag ma lagugu yimid mise kursigiisii markaas maxaan geyn karaa dacwadiyo qoraal ah ma layga guulaysanaa mase anaa guulaysanaa waan guulaysanaa because waxaan ahay hooyo ilmaheedii ka taxadarayso marka waa inaad ogaataa ilmahaaga macalinka u dhigayo iskuulka ilmahaaga waa inaad ogaataa maxaa dhahay fareenkiisa waa inaad ogsoonaata waa inaad ogaataa ilmahaaga waxa alla wuxuu yahay waa inaad ogsoonaataa sideen baan ku ogsoonaana macaay iyo dil iyo aflagaadadii ayaan ku ogsoonaana oo annaga caadada noo ahayd wiilkii firiyo sinji loo caynayo ama loo cadaabay qalbadaba marka hore laga soo dilo
وانا soo laabtay insha Allah waxaan u maleynaa inaad ka bogateen laakiin ha ka bixinina insha Allah next video waxaan soo dhigi doonaa next week insha Allah waa qaybta baartiga ugu dambeeyay oo ahaa ilmahaaga maxaad ka taqaanaa I hope inuu idin caawin doono oo aad ma jeclaan doontaan haddii Allah subhanahu wa ta'ala yiraahdo haddii ilmaha waa sidaan ka soo hadlay be attention feejignaan gaar ahna siiya idinkoo le xataa ilka cadaynayo ma ahan idinkoo caytamayo ama inkaartamayo ilmaha waa inaan mar walbaba aan u duceynaa haddii Allah subhanahu wa ta'ala yiraahdo Allah subhanahu wa ta'alana hanoo soo hanuuniyo ilmaheena annagana aan noqono waalid ilmahooda farxad iyo maskaxdii oo the same time aad ka xadaysid caruurtii in aan kula dhaqno haddii Allah subhanahu wa ta'ala yiraahdo hadduu hadalka idinka badi maaye videoga qaybta ugu dambeyso isbuuca soo socdo ila fiirsada haddii Allah subhanahu wa ta'ala حياتي إنه دست إن شاء الله هدو حنا ذيك كتجيا في أمان الله الله معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واحتفل فيك رسوله